bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ahaantiiba meel kasta ood naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga True Cable TV ood ka daawatan True Cable TV barnaamijka waxay ila socodsiisaa anigoo Sagal Maxamed Faxali daawadayaal toddobaadkan barnaamijka waxaan ugu soo warnay suuqa weyn ee Gobonimo ee magaalada Hargeysa annagoo mikrofoon kala dhex mari doona ganacsatada kala duwan ee suuqa bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacayga la yiraahdo Leila Diiriye Axmed ku nool xusbiga Gobonimo iibiyo khudradda dalka ka soo baxda jilmadlayaasha waaweynanahay waxaan ka warbixinayaa dalkeena wixii ka soo baxa waa cambalaf waa babay waa liin macaan waa shamaam waa shoog intaasoo dhanba dalkeena ka baxaan liin macaanta hadda ay nagu soo biirtay waa liintii ka imanaysay masaarida marka ay teenu go'an tahay taa masaarida ka timaada taasuma dalka kala wada marka ay teenu maqan tahay teenu markay timaadana taasaaba gooda waxaad moodaa labada xilli inay isku mid yihiin tani markay bilaabanto taa kalena way gooda ma timaado inta wadanka kale laga keenaa mayma jabno waaba dollar qaali ah laakiin waxaa noo geysatay khudrad la'aan toobiyadan oo kale waan ka maarmi karnaa haddii aynu dalkeena wax soo saar ka samayno kan oo kale waa shamaam baa la yidhaahdaa kan oo kale waa shamaam tani waa cambalaf taas waa baydariin soo qabo waa cambalafkii dalka kan waa baydariin taas waa liin macaan waxaasoo dhan waa wadanka ayuu ka baxaa wax dabad laga keenaa ma jirto sidii waxay ku xidhantay kolba xoolo u soo dhalaan mar way badan tahay oo way jabantay marna waa qaali hadda laakiin imankay bilow tahay weli waa meel dhexe qaalina maaha jabnina maaha waa normal laakiin khudradda dalku waxay ku xidhantuun badnida wixii ay kolba sidii ay u timaado unbay ku xidhantahay waxay ka timaadaa waqooyi galbeed bari berberaagteeda cambaha u badan ee wadanka arqiya wuxuu ka yimaadaa dhaymoole laasadacawe berbera jiideedaasoo dhan ayuu ka yimaadaa majority cambaha u badan ee muhiimadda yimaada hargeysa cambaha yimaado oo dhami berbera iyo jiideedu ka yimaadaa halkani waa suuqa Gobonimo la yiraahdo ee khudraddu ku soo degto bartan iminka aan joogaa waa istaanka wajaale ee khudradda lagu soo rogo wuxuu ku xidhan yahay qiimuhu badnidiya yarida marna wuu jabayaa mar wuxuu ahaa bishan hadda laabatii ka horeysay 360 haddana 300 buu marayaa inuu ka sii jabo inuu ka qaaliyoobo khudraddu waxay ku xidhan tahay siday kolba u soo badataa awgeed anigoo ganacsatada suuqan Gobonimo khaas ahaan imika xabxabka qolada hor fadhida aan ahay waxaan idin ka warramayaa xabxabkana waayihiisa wax iga weydiisanaya iibkiisa iyo sixiradiisa sixir walba wuu leeyahay kureeriis waxaanu siinaa 20 6 buu leeyahay 10 buu leeyahay waana xabxabkii wadanka ee dalka ee dooxyada biyaha leh ee magaalada galbeedkeega iyo waqooyigeega lagu beeray dee waad arkaysaana banaanadu yaallo iyo daladaha u yaaliyo harka oo waxba idin kama qarsoona xabxabkana wuxuu ka yimaadaa Soomaaliland siiba dooxyada biyaha leh ee magaalada amba waqooyigeega amba galbeedkeega kana waa halku ku soo dago eenu ku iibino ee barxadda Hargeysa ee loogu yimaado ummadu kii bari ka yimid iyo kii galbeed ka yimid iyo kii guryaheega ka soo baxaa waa meel sayridoo dee barxada xoolo lagu ganacsado waxay doonaan baa haadaan amba liin macaan haadaan amba cambaha haadaan amba wixii wadaniga soo go'a wixii wadaniga soo go'a ee wadanka ka soo go'a aad bay u fiicantay aad buu fiicantay maciishada iibkiisu uu jaban yahay horena waan ku yiri haddana waan ku leeyahay daawadayaal intaasi waxay nagu soo gabagabay barnaamijka ganacsiga True Cable TV barnaamijkana waxaa idin soo saartay anigoo Sagal Maxamed Faxali intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan idinka tagnaa assalaamu alaykum